kadib markii uu bilaabmay dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine 24 February 2022 waxaa si xoogan sare ugu kacay qiimaha shidaalka iyo gaaska laga isticmaalo dunida kadib markii uu dalka Mareykanku ku dhawaaqay inuu joojinayo gaaska iyo shidaalka laga soo iibsado dhinaca Ruushka iyadoo sidoo kale dhinaca dalka Ingiriiska iyo dalalka Yurub laga dareemayo dhibaatooyin la xiriira dhinaca sicir bararka iyo kor u kaca qiimaha shidaalka iyo noocyada kala duwan ee gaasta. Haddaba waxaynu warbixintan ku eegi doonaa dalalka ugu badan ee haysta kaydka gaaska dabiiciga ah, wadamada gaasta ugu badan u dhoofiya dalalka dibadda, iyo sidoo kale dalalka iyo qaaradaha macaamiisha ugu badan u ah gaasta dabiiciga ah ee laga soo saaro dalka Ruushka. Sida ku cad warbixinaha kala duwan ee laga soo saaray isticmaalka gaaska, waxaa la ogaaday in guud ahaan sanadka 2020 adduunka oo dhan laga isticmaalay gaas xaddigeedu ka badan yahay 3 bilyan 822 milyan oo mitir kuyubik oo gaas ah, iyadoo dalka Mareykanka oo qura uu 20% isticmaalay gaaskaas. waxaanu ku sii xigaa Ruushka iyo Shiinaha oo iyaguna isticmaalay gaaska ugu badan adduunka. Ruushku waa dalka haysta kaydka gaaska dabiiciga ah ee ugu weyn adduunka oo dhan, waxaana ku xiga dalalka Iran iyo Qatar, waxayna saddexdaas dal isku darkoodu ay sanadkii 2020 haysteen kala badh kaydka gaaska dabiiciga ah ee adduunka oo dhan. Marka aynu eegno dalalka dhoofiya gaasta ugu badan caalamka, inagoo ku horeyn doonaa golaha uu ku midoobeen 11 wadan ee ah wadamada gaaska dhoofiya, kuwaas oo kala ah Ruushka, Algeria, Masar, Bolivia, Equatorial Guinea, Iran, Libya, Nigeria, Qatar, Trinidad and Tobago iyo Venezuela. Sidoo kale waxaa jira dalal kale oo gaaska dhoofiya balse aan xubno ka ahayn madashan, balse ku leh xubno goobjoogayaal ah, waana dalalka Norway, Angola, Azerbaijan, Iraq, Malaysia, Mozambique, Peru iyo Imaaraadka Carabta. Marka dhammaantood la isku darana waxay 70% haystaan kaydka gaaska dabiiciga ah ee adduunka oo dhan. Gaasta loo dhoofiya caalamka waxaa 80% dhoofiya 10 wadan oo ah kuwa loo aqoonsan yahay dhoofiyayaasha gaaska ee ugu waaweyn adduunka. Marka la eego sanadkii 2020 10 wadan ee gaaska ugu badan u dhoofiya adduunka waxay kala ahaayeen Ruushka, Mareykanka, Qatar, Norway, Australia, Canada, Jarmalka, Holland, Algeria iyo Nigeria, iyadoo dalalkan ay ka mid yihiin qaar gaaska ay soo iibsadaan dib u sii dhoofiya sida Jarmalka oo kale. Dhinaca kale waxaa jira dalal si weyn ugu tiirsan gaaska laga soo saaro dalka Ruushka, balse marka hore aynu eegno xaddiga dhaqaalaha ee dalalka gaaska ugu badan dhoofiya ka heleen sanadkii 2019. waxaana ugu horeeya wadanka Australia oo dhoofiyay gaas qiimaheedu yahay 34 bilyan oo dollarka Mareykanka. Dalka Qatar ayaa isna dhoofiyay gaas uu ka helay dakhli dhan 27.5 bilyan oo dollarka Mareykanka. Ruushka ayaa dalalka dibadda u diray gaas qiimaheedu gaaraya 24.5 bilyan oo dollarka Mareykanka. Norway waxay dirtay 21 bilyan oo dollarka Mareykanka, iyo Mareykanka oo isna dhoofiyay 16 bilyan oo dollarka Mareykanka. Talyaaniga ayaa sanadkaas noqday dalka 4 meelood meel ahaan oo noqonaysa 24% iibsaday gaaska Ruushka, taas oo qiimo ahaan u dhigan 5.8 bilyan oo dollarka Mareykanka. waxayna taasi noqonaysaa 39% guud ahaan gaaska uu Talyaanigu ka soo iibsaday adduunka. ugu yaraan 37 wadan ayaa dalka Ruushka gaas ka soo iibsaday sanadkii 2019. dalalka sida weyn ugu tiirsan gaaska oo ay ka soo iibsadaan Ruushka waxaa ka mid ah Belarus, Bosnia, Herzegovina, Norway iyo Serbia, waxayna dalalkaasi mid walba uu Ruushka ka soo iibsaday qiyaas ahaan 99% gaaskooda dabiiciga ah, waxaana xogtan la helay sanadkii 2019 oo qura. hase yeeshee si guud marka loo eego dalal badan oo kale oo ay ka mid yihiin Finland, Estonia, Poland iyo Slovakia ayaa iyaguna ku jira. dhinaca qaaradaha adduunka, marka la eego qaaradda Yurub
ayaa ah midda ugu badan ee sida weyn ugu tiirsan gaaska Ruushka, iyadoo la ogaaday in sanadkii 2021 ay maalin walba dalalka qaaradda Yurub ka soo iibsadeen Ruushka gaas dhan 380 milyan oo mitir kuyubik, waana gaaska la soo mariyo dhinaca dhuumaha. balse waxa intaas dheer gaaska dabiiciga ah ee dareeraha laga dhigay oo iyadana ay Ruushka kala soo degaan, waxayna qaaradda Yurub ay 45% ku tiirsan yihiin gaaska uga yimaada dalka Ruushka. dagaalka Ukraine ayaa sababay in cunaqabateyno kala duwan lagu soo rogo dalka Ruushka, waxayna xilligan midowga Yurub ku dhawaaqeen qorshe iyo istaraatiijiyad ay ku doonayaan sida ay u yareyn lahaayeen ku tiirsanaantooda gaaska Ruushka, qiyaas ahaan 3 meelood oo 2 meelood marka la gaadho dhamaadka sanadka 2022, iyagoo raadinaya meelo kale oo ay ka helaan beddelka gaaska ay ka soo iibsadaan Ruushka. balse waxa la sheegay intaasi ay aad ugu adkaan doonto, isla markaana dhibaatooyin dhinaca tamarta iyo gaaska ay ka dhici doonaan qaaradda Yurub haddii ay hoos u dhigaan gaaska uga yimaada Ruushka. marka si guud loo qiimeeyo, gaaska dabiiciga ah ee Ruushka waa il tamareed oo xilligan muhiim u ah caalamka oo dhan, iyadoo cunaqabateynada lagu soo rogay Ruushku ay sabab u noqon karto in si weyn caalamka looga dareemo, iyadoo dhibku aanu ku koobnayn Ruushka oo qura, maadaama dalal badan oo adduunka ay ku tiirsan yihiin gaaska Ruushka laga soo saaro. marka laga yimaado hogaamiyeyaasha haya talada dalalka reer galbeedka oo doonaya in la joojiyo gaaska iyo shidaalka laga soo dhoofiyo Ruushka, waxa qorshahaas walaac ka qaba dadweynaha caadiga ah ee dalalkooda oo ka cabsi qaba in siyaasadeynta shidaalka iyo gaasku uu saameyn adag ku yeelan doono nolol maalmeedkooda caadiga ah, maadaama oo dalalkooda laga dareemi doono sicir barar iyo in kor u kac uu ku yimaado qiimaha caadiga ah ee ay ku iibsan jireen shidaalka iyo gaaska oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay. waana arrimaha caqabada ku noqon kara in madaxda dalalka reer galbeedku ay ku degdegeen inay joojiyaan gaaska iyo shidaalka dalalkooda uga yimaada Ruushka, waxayna hadda ku hawlan yihiin inay raadiyaan qorshayaal kale oo lagaga bixi karo ku tiirsanaanta dalalkooda ee gaaska Ruushka. waana tallaabo siyaasiyiinta dalal badan ku adkaan doonta, balse wadahadallada nabadeed ee hadda u socda dalalka Ruushka iyo Ukraine ayaa loo arkaa fursad lagaga baaqsan karo dhibaato iyo musiibo dhinaca tamarta iyo gaaska ah oo ka dhacda caalamka oo dhan. balse haddii dagaalka Ukraine sii daba dheeraado laguna fashilmo waanwaanta diblomaasiyadeed ee socota, waxa suurtagal ah in xaaladdu faraha ka sii baxdo. Khadar Haybe, Saab TV.